halkan uga mahadcelinayaa dhammaan macallimiinta maamulayaasha jaamacadda Bariga Afrika waxaan ahay ardayad kamid ah ardayda ka baxday jaamacadda Bariga Afrika qaybta health science-ka garan nutrition waxaan halkan ka cadeynayaa in aan ku faraxsanahay maadaama aan maanta ka qaadanayo shahaadadeydii ugu dambeysay aan ka qaadanayo jaamacadda oo gurigeyga jooga oo ka adeeganaya shaqadeydii ku jira aan u helay fursad ee siisay maadaama markii hore aan ahaa ardaydii ee ka burburtay jaamacadda Maakri University kadibna halka ay nooga sii wadeen jaamacadda Bariga Afrika halka waa uga mahadcelinayaa marka waadi mar labaad mar saddexaadba waxaan leeyahay jaamacadda aad baa loogu baahan yahay jaamacaddu waxay muhiim u tahay dadka degan gobolka Sanaag iyo nawaaxigiisa waxay soo kordhisay hadeer jaamacadda hadeer oo aan aad kale ugu sii faraxsanahay macadkan hadeer laga dhiganayo halkan 2 sano kalena jaamacadda loo sii gudbinayo qofka macadka wuxuu bixinayaa maadooyin badan waadna arki doontaan insha Allah waxaan idinku leeyahay ka faa'iideysta macadka magaciisa hadan ku soo noqdo magaciisa waxa la yiraahdaa Horizon Academia magacaygu Cabdi Maxamed ahna ardadii sanadka dhamaysay jaamacadda Bariga Afrika kambaskeeda baran runtii maanta waxay tahay maalin weyn oo aan waxbarasho 4 sano aan soo waday maanta guusheedii iyo shahaadadeedii maanta aan gudoomayo waana fursad qaaliya oo aan helay taana waxaan uga mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala iyo jaamacadda Bariga Afrika bulshada ku dhaqan gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Baran waxaan ku dhiirigelin lahaa in ay ka faa'iideystaan waxbarashada ay keentay jaamacadda Bariga Afrika Horizon Academy waa fursad qaaliya oo gurigaaga kuugu timi ayadoo lagu bixinayo kulliyado kala duwan oo maxay dhan walba ka turjumaya marka waxaan oran lahaa bulshada barnaamij ka faa'iideysta qofkii wax bartaa isaga ayaa horumar gaara marka koowaad Ilaahay baa mahadle madashan aan joognaa waxa weeye xafiiska Horizon Academy Horizon Academy waa xafiis iyo macahad ka shaqeyn doona waxbarashada heerka 2 sano ee dibloomada waxa laga furay magaalada Baran wuxuu hoos imanayaa jaamacadda Bariga Afrika haddaan wax yar ka taabto macadku wuxuu bixin doonaa diploma program 4 semester ardaydu markay 4 semester dhamaystaan waxay awood u yeelan doonaan inay ka dhamaystirtaan jaamacadda Bariga Afrika oo macadku hoos yimaado oo affiliate leeyahay waxa jira programo badan oo kala duwan oo macadku bixin doono programadaas faculty-yada ay hoos tagaan waxa kamid ah faculty Information Science and Technology oo IT ah sidoo kale Health Science oo qaybihiisa kala duwan isagana aan bixin doono ay kamid yihiin Public Health, Medical Laboratory, Nursing, Nutrition, Pharmacology iyo Clinical Officer intaas oo dhammi waxay hoos tagaan qaybta Health Science-ka waxa kale oo macadku bixin doona project Business Management ama BBA oo isaguna diblomadiisi ay diyaarsan tahay waxa kale oo macadku uu bixin doona luqadda Englishka oo ah 3 level oo kala duwan oo dadka ay baran doonaan diblomooyin iyo shahaadooyin kala duwan ay ka qaadan doonaan sidoo kale wuxuu bixin doonaa macadku short course kala duwan oo ay kamid yihiin QuickBook, Computer Science, e-commerce, graphic design iyo web development dhammaan qaybahaas waxay noqon doonaan iyo qaybo kale oo badan short course macadka ka baxa macadku wuxuu ku yaalaa xaruntiisana lagu asaasay magaalada Baran xarunta macadku waxa weeye xaafadda Golis gaar ahaan gadaasha dambe Masjid Fadhi ahna gurigii hore ee gobolku deganaan jiray kana soo horjeeda gurigii degmadu ay deganayd ama dawladda hoose aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi kuna soo dhawaada Horizon Academy diiwaangelintuna way bilaabmi doontaa insha Allah wana shaacin doonaa xilliga diiwaangelintu ay bilaabmayso wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh